سلام بعد وان تعالى halkan idinku soo gudbino warbixintii guddiga shuruucda arrimaha garsoorka iyo xuquuqlisaanka ee Golaha Guurtida guddiga shuruucda iyo arrimaha garsoorka iyagoo ka duulaya ajandaha kala fadhiga 16aad ee Golaha Guurtida Jamhuuriyadda Somaliland qodobka 6aad faqradiisa ha ee arrimaha garsoorka iyo cadaaladda waxay guddigani golaha guddigani uga xil saaran waaxdaas waxaa guddigu la kulmeen ugu horreyn ilaalinta guud oo warbixin naga siiyey kiisaskii dhacay sanadkii tegey ee 2016 waana sidan gobol inkastoo ina gobolladu ama ani degmooyinka badankooda ku dhannayn ayna ku wada dhannayn haddana warbixinta ilaalintuna siisay kiisaskaa dhacay sanadkii tegey dil gobolka Maroodi Jeex ama Hargeysa 15 dil buu ahaa burcad 108 kufsi 26 shil gaari 55 maandooriye 27 isku day dil 18 buu ahaa tog dheer 26 iyo dilku ahaa burcad 37 kufsi 17 shil gaari 29 maandooriye 43 isku day dil 17 buu ahaa awdal dil 6 buu ahaa burcad 11 kufsi 8 shil gaari 4 qof buu ahaa maandooriye 12 isku day dil 4 buu ahaa saaxil 15 dil 12 buu ahaa burcad 4 kufsi 6 shil gaari 47 maandooriye iyo wixii lamida wixii macnihi wax weeyaan waa 20 isku day dil 2 buu ahaa sanaag dil 6 buu ahaa burcad 4 bay ahayd kufsi 19 shil gaari 6 maandooriye 3 qof isku day dil 8 buu ahaa sool dil 3 burcad 5 kufsi 8 shil gaari 12 maandooriye 24 isku day dil 7 ayuu ahaa gabiley dil 5 buu ahaa burcad 9 kufsi 5 shil baabuur 24 maandooriye 34 bay ay minta hore maandooriye 24 isku day dil ibr buu ahaa waxba ma lahayn saraar dil 4 buu ahaa burcad waa ibr waxba ma jirin kufsi 2 ayuu ahaa shil gaari 2 qof ayaa ku dhintay maandooriye waxba ma jirin isku day dil 3 buu ahaa totalka guud ee dadka dilka ku dhintay waa 77 burcad 160 kufsi 19 shil gaari 189 maandooriye 156 isku day dil 59 bay waxa kaloo guddigu kulan la qaatay la yeeshay kursamaha gudoomiyaha maxkamadda sare guddiga warbixin ka siiyey howlaha waaxda garsoorka ee qaranka ku hayso waxaanu sheegay in howlaha garsoorku meel fiican marayaan iyagoo dhawaan meel fiican ayuu marayaa iyadoo dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mideeyay maamulkii garsoorka oo awal kala qaarnaa oo sidaynu ognahay maxkamadaha hoose waxa laga maamuli jiray wasaaradda cadaaladda guddiga cadaaladda waxay ilaalin jireen oo kale ahaatay beddelka iyo wixii lamida waayahay waxa kale oo uu gudoomiyuhu sheegay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo xeerarka kala ah xeerka muqaadaraadka xeerka nidaamka garsoorka xeerka musuqmaasuqa xeerka caruurta kuwaasi oo horena loo soo jeediyey in wax ka beddelkooda waxa kale oo uu noo sheegay in
dhibaatooyinka jira ee hawlaha garsoorka caqabad ku noqon kara ay ka mid yihiin kow xabsiyada dalka oo yar gaar ahaan haba ugu sii daraato magaalada madaxda dalka ee Hargeysa iyada oo tusaale ahaan xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa uu markii hore qaadi jiray 950 maxbuus hase ahaatee markii dib u dhiska lagu sameeyay uu qaado oo kaliya 450 maxbuus oo kaliya iyada oo aanay jirin qaybo dumarka iyo carruurta laba in isha lagu hayo xeerarka ay hay'aduhu Soomaaliya u daabacaan ay inagana inoo soo gudbiyaan waxa kale oo iyana uu sheegay in loo baahan yahay in la helo xeerkii xabsiyada carruurta iyo xarumihii lagu dhaqan celin lahaa gabagabadii waxa guddigu soo jeedinaya kow in xabsiyada dalka la kordhiyo gaar ahaan magaalada Hargeysa oo la helo xabsi maadaama dad ahaan iyo baaxad ahaanba ay korodhay ay gaadhay xabsiyada hadda jiraana aanu lahayn qaybo badan oo kuwa loo baahnaya warbixin runtii kuwa ka dhaadheer wayna sii waa jireen laakiin waqtiga nagu koobnaafkii laba in shuruucda waxda garsoorku ay ka amanayo golayaashu si degdeg ah u eegaan lana waafajiyo waqtiga hadda la joogo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh